maalmo kooban kadib waxaa dhammaan doona sanadka 2023 uu dhammaanaya sanadkani idinkale waxaa la dhammaan doona sanadkani dhammaan murugooyinkiina soo maray uu dhammaanayaa waxaana la dhammaanaya dhammaan dhaawacyadiina soo gaaray sanadkan dhexdiisa 2023 waxaan yaroo kooban ka hadhay maalmihii u dambeeyay saaxiibtinimadeena waxaad yahayd macallin fiican waxaan kaa soo bartay waxyaabo fara badan oo aan intaan ku soo koobi karin waxaad yahayd weelka keliya ee waddo kasta oo aan marayo igu wehelin jiray 31,552,952 ilbiriqsi ayaad ka koobaneed waxaan aniga kula socday 365 maalmood waxaan isaqaanay muddadaasi aad ku dheer laakiin waxaa laga maarmaan ah inaan nafteeda ku qanciyo waqtigii aan ku maxsalaameyn lahaa inuu soo dhow yahay waxaan isla soo marnay dooxooyinka qalbijabka iyo beeraha guusha haddaadan adigu gaari lahayn anigu maan jirayn waxaad ahayd mid aan ka maarmin markaan muraayadda istaago oo aan dhowlcadeeyo iyo marka habeenka mugdigiisa ii soo golaan ilmeynayo rabbigay hor fadhiistan baryayo iyo markaan cuntada cunayo iyo markaan madadaaloonayo iyo markaan wax aqrisanayo iyo marka aan neefsanayo iyo markaan hurdaba intaba waxaad ahayd qayb ka mid ah noloshayda inkastoo duruufaha dunyadu aanay ku saamaxaynin sida aad doonayso marmarka qaarkoodna laga yaabo in ay rajadaada goodo haddana say doonto ha ahaatee waagii baryaba oo aanan hubin sida ay xaaladayda noqon doonto iyo gobolkii dhacba anigoo daalan oo aan weli xaqiijiriyooyinkayga waxaad ahayd hadiyad weyn oo rabbigay i siiyey waxaan kaa bartay albaabo fara badan oo nolosha ka mid ah marka ay kaa xirmaan sida loo furto waxaan dhadhamiyey oo aan bartay dhadhanka guuldaradu ay leedahay waxaan kaa bartay sida loo mahadiyo markaaad guul gaartid xagga aqoontana marka ay noqoto wax fara badan ayaan kaa bartay dhinaca jaceylkana kuwii aan jeclaa markii aan waayey waxaan kaa bartay si loo samro xagga baahida marka ay noqoto waxaan kaa bartay sida duruufaha dunyadu loogu dulqaato waxaan kaa bartay sida nafteeda ugu adkaan lahaa sida nolosheeda guud ahaanba u bedeli lahaa hadday tahay dhinac dhaqaale iyo hadday tahay nolosheeda guud ahaanba waxaan kaa bartay sidan qalbiga ugu adkaan lahaa waxaan kaloo kaa bartay sidan hadafyo u dejisan lahaa hadafyada aan qortayna kuwa ii sartogeli waayey ee aan u bar lahaa sababaha ka dambeeyey inay fashilmaan waxaad ahayd waddalig marmaan ahayd inaan maro waxaad ahayd qayb weyn nafteeda ku qasbaneed inay qismigeeda ka qaadato waxaad ahayd waqtigii saqda dhexe ee habeenkii nafteydu ilmeynaysay ee aan samirka ku sabayey ee aan ku seexinayay waxaad ahayd qayb cimrigayga ka mid ah waxaan kaa bartay cashiro dahabi ah oo qiimo gooya uusan jirin waxaad ahayd midka aan keysan karin waxaad ahayd midka aan dhowri karin waxaad ahayd midka aan soo deysan karin waxaad ahayd mid qiimo gooya uusan jirin waxaad i bartay saaxiibo aad u wanaagsan oo nolosheeda maanta garabkayga ku jira waxaad ahayd midkii i baray dariiqyo fara badan oo nolosha maanta ay u baahan tahay in loo maro waxaad ahayd midkii indhaha ii kala furay habeenkii roobka badnaa barqooyinkii barafka badnaa iyo galbihii qabooba waxaad ahayd midkaan isoo soo marnay waxaan ahay bani aadam baahidayda marnama dhammaato intaan dunida dul taaganahay boqorkii ii ka hadiyadeeyey ayaa mar walba kuugu mahadin doonaa waxaa soo dhowaatay meeshii aynu adigay aniga isku maxsalaameyn lahayn oo aynu waddada ku kala leexsan lahayn waxaad i bartay saaxiibka cusub ee aan u guri doono dabeecadihii dhaqmiyaan kula dhaqmi lahaa waxaad i bartay sidaan u soo dhoweyn lahaa qof kasta oo nolosheeda ku soo biira waxaad i bartay sida furayaashii aad i soo siisay qasnadaha cusub uu saaxiibkii haayo sidaan ugu furan lahaa waxaan kaa bartay sidaan 2024 aan saaxiib cusub ugu dhigan lahaa dariiqan aan ku soo dhoweyn lahaa waxaad siisay qariiradii aan ku socon lahaa waxaan ogahay in waddooyin badan oo kale aanan aqoonin uu saaxiibkii cusub i kala bari doono taasina waa mid aan mar walba diyaar u ahay 2023 saaxiibkayga qaaliga ayaad ahayd halgankii aad igu ogeedna waxaan kaa hubaa intay nafti ugu jirto inaan joojin doonin bartii aad kaga tagtayna aan ka sii wadi doono waa balinta aan nafteeda ka qaaday saaxiibkayga cusub ee 2024 haddii rabbigay ii saamaxo oo ii gaarsiiyo waxaan ugu sheekayn doonaa adigii anigaba qisooyinkii dheeraa ee aynu isla soo marnay waxaan ugu warami doonaa booskii aad i keentay ee aad maantan igu macsalaamaysay
waxaan ugu sheekayn doonaa guuldarooyinkii, sidoo kalena waxaan ugu sheekayn doonaa guulahaygii, waxyaabihii tiraha badnaa ee qaraaraa ee aynu isla soo marnay. waxaan ugu warrami doonaa wax kasta oo aynu adiga iyo anigaba isla soo marnay. waxaan soo dhowaynayaa oo aan u sheegayaa saaxiibtinimada aniga iyo adiga inaga dhexaysay sida ay u xildheereed. waxaan u sheegi doonaa in booskaagii inuu isku dayay inuu beddelo si aan isaga wax uga barto, kuwa ka sii dambeeyana haddii nafteedii gaarto aan ugu sii sheekeeyo. saaxiibkii aan goordhow kala tegi doono, waxaad ogaataa waxaana guri doonaa guri kale cusub. waxaan kaloo furi doonaa buug kale aanay wax ku qornayn. waxaad ogaataa sheekooyinkii quruxda badnaa ee aynu isla soo marnay iyo waxyaabihii lagama maarmaanka nolosheedu u ahaa ee aan kaa soo bartay inaan ku dhaqangeli doono oo aan ku qori doono baalasha cusub ee aan furi doono.